waxaan rabaa anigu dadka Soomaaliyeed baan u dhaartay dambi kaba gelin haddana diyaar baan u ahay inaan u dhinto waxaan rabaa inaan idin sheego laba qodob baan ka hadlayaa hadalka waxaan rabaa ma raba inaan badiyo anigu waxaan ahay saraakiishii inqilaabka 78 iyo 19 jir hal ay qabto inqilaabka ka qayb galay waxaan rabaa inaan u sheego ciidanka qaranka saraakiisha Soomaaliyeed oo qalabka sidata haddii sharcigu lumo sidii shalay baan qoryihii dib u qaadanayna waa yaalleen haddaad sharciga ku xadgudubtaan isku daynina in dambi leydin gasho dadkii aad u dhaarateen oo sharciyada iyo qaanuunka idin siiyay inaad darajo xirataan madaxweynada ilaalisaan dirays iyo canshuur leydin siiyay qaadataan waxaad ka fogaataan maadaama aanu nahay ciidamadii qaranka Soomaaliyeed oo shacbiga Soomaaliyeed aynu u wada dhaaranay ka fogaada in shacbiga Soomaaliyeed la idin isticmaalo ka fogaada waa digniin aan adinka idin siinayno waxaan rabaa oo kale inaan u sheego dadka dhalinyarada ah oo maanta nool 19 jir baan naftayadii u horay ogaada 13kii SYL waxay ahaayeen dhowr iyo 20 jiro adinkaydii qusaysaa u soo baxa qaanuunka iyo dawlad la'aanta iyo mugdiga qarannimadii baa khatar ku jirta in hadeer la ina qabsado wax inaga xiga ma jiraan marka inaynu gumaysi dib u galno annagu qof inaan taabana ma rabno qaanuunkii waa lumay wax min la ina qabsado wax ina ka xiga ma jiraan dadka ilbaha garanaya waa in dawlad sharciya la helaa sida ugu dhaqsaha badan oo dadka reer Muqdisho waa ognahay inay gacmaha uga xiran yihiin in la yiraahdo dawlad baad ridaan aan dawlad ahayn oo bahal ah gacmaha uga xiraanina ma ahayn dawlad waxaad rideen dictator buu ahaa dulli ah marka gacmaha haysa saaranina mar dambe annagu waxaan ka soo jeedaa gobolada Puntland waliga yana dictator ma aanan soo dhaweyn mana yeeli doono wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh